dhaxal sugaha Imaaraadka Carabta Maxamed bin Zayed Al Nahyan ayaa niyad jabiyay gabadh yar oo 12 jir ahayd xilli uu ku jiray soo dhaweynta dhaxal sugaha Sacuudi Carabiya Maxamed bin Salman. haddaad ku cusubtood hadda nagu soo biirtay fadlan subscribe sar hubaal media rukumo oo ku dhufa alamka si mar walba aad u hesho xogtaan ku soo gudbinayno. baraha bulshada ee dalka Imaaraadka Carabta iyo guud ahaan dalalka Carabeed ayaa waxaa saacadihii la soo dhaafay qabsaday gabadh yar oo aad uga qalbi jabtay dhaxal sugaha Imaaraadka Carabta Maxamed bin Zayed Al Nahyan kadib mar ay gacanta u taagtay si ay u salaanto kadibna uu isaga dhaqaaqay. Maxamed bin Zayed Al Nahyan oo xilligaasi dalkiisa ku soo dhaweynayay dhaxal sugaha Sacuudi Carabiya Maxamed bin Salman ayaa waxaa soo dhaweyntiisa ka qayb qaatay dad aad u tiro badan oo safaf dhaadheer la geliyay, waxaana dhaxal suga Maxamed bin Zayed Al Nahyan uu salaamay inta badan carruurtii safka ku jirtay ee u diyaarka ahayd soo dhaweynta wafdiga Sacuudiga, balse aakhirkii safkii ugu dambeeyay waxa uu ka tagay in uu salaamo gabadh yar oo gacanta u soo taagtay. muuqaal laga duubay dhaxal sugaha oo sii dhaafahaya gabadhan yarta ee gacanta haadinaysa ayaa qabsaday baraha bulshada iyadoo oo dad badanna ay ku eedeeyeen hogaamiyaha Imaaraadka Carabta sababta uu u dhaafay gabadhan yarta ee gacanta u soo haadisay. gabadha yar oo lagu magacaabo Aisha Maxamed Masheed Al-Mansuur ayaa u muuqatay in ay aad u doonaysay in ay salaanto dhaxal sugaha Imaaraadka Carabta, balse markiiba waxay dib ula laabatay gacanteeda iyadoo oo aad uga niyad jabsan. hase yeeshee markii muuqaalka gabadha yar ee salaanta seegtay uu baraha bulshada qabsaday, dad badan ayaa waxay bilaabeen olole ay ku dalbanayaan sababta uu Maxamed bin Zayed u salaami waayay gabadha yar ee sida niyadda u doonaysay inay u salaanto. saacado kadib dhaxal suga Maxamed bin Zayed ayaa wuxuu arkay sida ay dadka baraha bulshada ay uga falcelinayaan gabadhan yar ee ka qalbi jabtay in uu salaami waayay. waxa uuna maalin kadib ku booqday guriga ay ka degan yihiin qasriga gabadhani ay ku nooshahay, isagoo ka raaligeliyay wixii dhacay una sheegay in uusan u qasdin. Maxamed bin Zayed ayaa markii uu galay albaabka guriga Aisha Maxamed waxa uu ka dhunkaday dhabanada iyo wejiga, waxa uuna salaamay isagoo u muuqda qof aad ugu faraxsan la kulanka gabadhaasi. muuqaalada laga soo qaaday dhaxal sugaha Imaaraadka oo la kulmay gabadha yar ayaa mar kale qabsaday baraha bulshada ee dalka Carabta, waxaana dad badan ay ku bogaadiyeen sida uu tixgeliyay rajada gabadha yar ee doonaysay mar inay salaanto Maxamed bin Zayed Al Nahyan dhaxal sugaha Imaaraadka Carabta. halkan nagala socotaana waa hubaal media, fadlan haddaad ku cusub tahay subscribe sar rukumo ku dhufa alamka si mar walba aad u hesho xogtaan kuu soo gudbinayno. haddaba dhegayste, haddii aad ahaan lahayd Maxamed bin Zayed Al Nahyan ma booqan lahayd mise soo salaami lahayd gabadhaasi yarta ah? ma malayn lahayd in madaxweyne Afrikaan ah ama Soomaaliyeed uu dib ugu noqon lahaa gurigeeda gabadh yar oo jidka u taagnayd uu salaami rabay? meeqa jeer ayay dhacdaa in madaxda Soomaalida iyo Afrikaankuba ay jidadka kaga dhaqaaqaan kumanaan dadweynaha oo doonaya in ay salaamaan, iskuguna soo baxay cadceed aad u kulul si ay u muujiyaan dhiiranaanta soo dhaweynta madaxdooda.